بسم الله الرحمن الرحيم هبي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo aan ku eegayno war degdeg ah oo sheegaya in dawladda Itoobiya ay hub casri ah siisay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo xilligan dagaal kula jira dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale warar xasaasi ah ayaa ka soo baxaya xafiiska ra'iisul wasaare Xamza oo ku aadan khilaafka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland guud ahaan barnaamijkeena waxaan diiradda ku saareynaa khilaafka sii xoogeysanaya ee labada dhinac muuqaalkan like saar sidoo kalena la wadaag asxaabtaada dawladda Itoobiya ayaa mid ka mid ah faragelinadii ugu foosho xumaa ku sameynayso gudaha Soomaaliya iyada oo xilligan hub casri ah siisay Axmed Maxamed Islaam Madoobe sida ay wariyeen ila wareedyo kala duwan dawladda Itoobiya waxay hubeynaysaa Axmed Madoobe oo ah nin gooni u goosad ah sida saraakiil ay u sheegeen warbaahinta gudaha ah taa oo cadeynaysa in Itoobiya ay faragelin baan ku hayso Soomaaliya dawladda iyo maamulka Jubbaland khilaafka u dhaxeeya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareerayay waxay soo ugu daran tahay xaqiiqada warkan kolkii ay soo baxdo iyadoo uu jiro qorshe ay dawladdu wado ah in ra'iisul wasaare Xamza uu gaaro Raskamboni sidoo kale la rajeynayo in maalmaha soo socda halkaasi uu tago taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yusuf Raage wararku waxay leeyihiin Itoobiya waxay ciidankii ugu badnaa aan dhahday hubkii ugu badnaa ugu deeqday Axmed Madoobe hubkaasi waxa lagu dagaalamaya maaha cadow kale ee waa dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadeeda xisaabta ku darso wasiirka amniga Jubbaland ninka lagu magacaabo Dhuumaal ayaa galabta waxa uu tagay magaalada Beledxaawa ee gobolka Gadow halkaas oo xasarad ay ka taagan tahay ciidamadii Raskamboni ku sugnaa ayaa waxa hareereeyay ciidamo kale oo kuwa Jubbaland kuwa oo dhinaca xeebaha ka yimid deegaanada ku dhaa iyo soo kale magaalada Badhaadhe iyo deegaano kale oo dhowr oo iyagu markaas ku dhow Raskamboni ciidamadu ay buux dhaafiyaan hubkan uu helay Axmed Madoobe ayaa wuxuu ka soo galay xadbeenaadka Itoobiya gobolka Gadow uu la wadaago taa oo muujinaysa in Itoobiya xilligan ay farag kulul ku hayso ama faragelin baqaawan ay ku hayso Soomaaliya Itoobiya dhexdeeda dagaal la sokeeye iyo qoomiyado ayaa ka jira waxay doonaysaa inay huriso colaadda gudaha Soomaaliya Axmed Madoobe soo qabashadiisu ma aha wax sahlan hase ahaatee dawladdu waxay ku bixinaysaa xoog badan in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyahan dhowr iyo 10 sano xoog ku hayso maamulka Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la doonayaa tan inay tallaabo ka qaado gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in ay focus ka saarto ama diiradda saarto sidii Itoobiya ciidamadeeda jooga Soomaaliya looga saari lahaa kuwa admis ku jira maaha ciidamo kale oo waxa jira si sharci darro ah wadanka ku jooga waxaana ciidamada ugu badan ay joogaan gobolka Hiiraan sidoo kale gobolka Gadow waana labada xadbeenaad ee dalalka ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya weeyaan ciidamadaasi si sharci darro ay ku joogaan wax ka badan 6,000 oo askari ayaa gudaha Soomaaliya ku sugan hadda waxay ku sii dareen in hubsiyaan hogaamiyaha dawladda xilligan ka soo horjeeda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Aaro ee isku qoondeeyeen Axmed Madoobe ayaa qorsheynaya safar uu ku tago magaalada Raskamboni taasi oo cadeyn doonto in dawladdu dagaal walba ay la galayso Axmed Madoobe habeenadan Kismaayo xaalad cakrinaana ayaa ka taagan habeenkii leerarka ayaa la damiyaa isgaarsiintu waa la xakameeyaa sidoo kale saraakiil badan oo ka mid yahay ninkii guutada Barjax madaxda u ahaa ayaa Axmed Madoobe isha uu aad uga hayaa oo dhaqdhaqaaqooda la socda sidoo kale warar waxaa jira sheegaya in xanibaad la saaray madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan madax markaas aad u badan oo Ilyas Gaboose oo horey isu doortay uu ka mid yahay iyo madax kale ayuu Axmed Madoobe aad isha uga hayaa oo ciidamo dul dhigay magaalada Kismaayo waxaa la dhigay caratuuro iyo soo kale aagag dagaal iyadoo oo xiisad kacsanaan halkaas laga dareemayo Raskamboni waa la mid oo labada ciidan ayaa isku hor fadhiya deegaanka Istanbul la yiraahdo ay ciidamada dawladdu gacanta ku dhigaan saacado ka hor Istanbul waxay dhowr iyo 30 kilomitir u jirtaa magaalada Kismaayo oo Jubbada hoose ah Axmed Madoobena xaruntiisa ah dagaal hadii uu dhaco Axmed Madoobe waxa leeyahay dalalka ugu badan ee uu awood ka helayo waa Kenya iyo Ethiopia sharci ahaanshaha in madaxweyne dawlad goboleed dawlad kale oo dawlad la jaara inay u soo raacdo ayaa iyaduna wax badan in la iska weydiiyo ay tahay tan hadda Itoobiya ay ku hayso Soomaaliya waa cadaawad soo jireen waxayna ka faa'iideysanaysaa xilligan kala qoqobka ka jira dawladda dhexdeeda iyo soo kale dalka sida uu kala daasan yahay Itoobiya waa cadawga koowaad ee Soomaaliya hadii aan la iska celinna waa dareemi kartaa cadawgaaga oo dhowr iyo 70kii ka hor aad dagaalo ku jirteen in xilligan uu beelaha kugu helo taasina waxa keenaya Axmed Madoobe oo xukunkiisa aanu ognahay wixii uu dhaxalsiiyay reer Jubbaland iyo guud ahaanba Soomaaliya warkan oo xaqiiqadiisa hadda ay soo baxayso ayaa wuxuu u baahan yahay ka hortag iyo sidoo kale in la wadaago fariimaha noocan oo kala ah iyo dalaabo ay qaado
dowladda federaalk ee Soomaaliya hadda khilaafka cirka ayuu isku sii shareerayaa lamana oga halka uu ku soo idlaan karo dagaalka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya haddii aad inta nala soo gaarto muuqaalka like saar sidoo kalena rukumo baraheena bulshada aad iyo aad u mahadsantahay daawada